السلام عليكم soo dhawaada mar kale maadaama dagaalka Iran iyo Israa'iil uu socdo ninkan oo haysta dhalasho Mareykan ayaa wuxuu isku dayay inuu tago dalka Iran iyadoo dawladda Mareykanka ay uga digtay dadka dhalashada Mareykanka haysta in aan la booqan karin dalka Iran oo lagu xiri karo dadka Mareykanka lagu xidho laakiin ninkan ayaa ka warkeenaya balaarintan iyo in Iran la isku xidhayeen kale muuqaalkan aynan ku eegi doonaa wuxuu la kulmo haddii markii ugu horeysay daawanaysa ay tahay hadaba fadlan subscribe to noo saar muuqaalkana like saara ugu horeyn hadaba ninkan sidoo muuqaalka bilowgiisa ku sheegayba safaaradaha Mareykanka iyo waxaas Iran kama shaqeeyaan qof dhalasho Amerikaan ah istanaad meeshan uu soo boqdo ay wax ka qaldamaan isaga u taala oo cid ka badbaadin karta meeshan ma jirto laakiin sidaas ay tahay isagu ku madaxdeeyaya waxaan doonayaa inuu la kulmo dadka Iran oo wareysto waxay ka aaminsan yihiin Mareykanka iyo sidoo kale waxa uu soo wareysanayaa xaaladda amniga ee ka jirta Iran haddii aad ku safrayso 7 cisho oo dhameystiran ayaan ku dhex jirayaa oo magaalooyinka Iran iskaga gudbaya ugu horeyn abiy hooyada ayuu wacaya isagoo sheegay Iran tagayo laakiin labadooduba way ku qaylinayaan waxayna kornayaan maxaad ka doonaysaa isaga joog maadaama dhalasho Mareykan uu haysto in la xiri karo Iran haddii uu tagay aaminsan yihiin inta kadib ninkan waxa uu ka soo duulaya magaalada Prague ee dalka Czech Republic isagoo soo gaadhay magaalada Shiraz ee dalka Iran ugu horeynta markii madaarka sida uu soo gaadhaan ninka kameramaanka waa ayaa lagu yara dhagaya ofiisyadiisa la soo saar waayay 2 saacadood bay halka ku sugayaan laakiin inta kadib fiisada way helayaan waxaana meesha ku soo dhaweynaya nin soo kala tusi doona magaalada kaas soo kaxaynaya meel fara badan oo magaalada soo tusaya airportkana taxi yar ay ka soo raacayaan isaguna aad ugu heliyaba hawada freshka ee uu qaadanayo magaalada Shiraz ee ninkan yimid oo mid kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka Iran ugu horeyn ninkii magaalada soo kala tusay waxa uu keenaya masaajid halkaas oo ay soo eegayaan gudihiisa masaajid aad u sharaxanayaan oo dhammaan gidaaradiisa lagu sharaxay farshaxano kala duwan kuwaas oo badan kalarka pinkiga loo yaqaano masaajidka laftarkiisana pinki mask waa loo yaqaanaa inta kadib markay masaajidka ka tagaan waxay tagayaan meel kale oo meesha ugu qadiimsan Iran uu ku sheegay ninkani dadka dalxiisayaasha badankoodna meeshan way tagaan oo qasab in qofka dalxiisaha la geeyo meeshan oo Persepolis lagu magacaabo waxa ka dhisan dhismayaal qadiimiya kuwaas oo la dhisay 517 sano ka hor oo BC ah meeshanina waxay ahayd meel ay u isticmaalaan inay ku dabaaldegaan boqortooyinkii Persia meeshana waxooga ay joogayaan iyagoo dad fara badan ay ugu imanayaan oo soo dhaweynayaan qaar kalena sawiraan ay la gelayaan inta kadib ninkan waxa uu sheegayaa in ilaa imkaan la kulmay wax dhibaato laakiin uu rabo inuu la kulmo dadka kale ee Iran ku nool iyo qaybaha kale iyagoo markana u dhaqaaqay inay tagaan magaalada ku xigta ee Isfahan loo yaqaano inta ay dhexda sii socdaan waxay ku yar istaagayaan meel ay ka helayaan buuraha dabiiciga ee ku yaala sidoo kalena dhulka buuraleyda ee miyiga waxay kula kulmayaan dad kale oo loo yaqaan Kashka nomads ama dadka reer miyiga ee Kashkayga magaalada Kashkar iyo hareeraheeda kuwaas oo dhaqda xoolaha kala duwan sida ariga geela iyagoo sidoo kalena reer guura ah oo mar walba ka guura meesha ay degan yihiin ninkan iyo ninkii magaalada soo kala tusayna way la yar fariisanayaanba iyagoo xoolahooda xataa u waraabinaya shaaxiyo waxaanu weysiinayaan ilaa habeenka ayaanu la joogayaaba isagoo la cunaya cashada subaxii markuu soo toosana xoolihi ayuu la dareerinaya reer miyiga isagoo ilaa duhurkana la joogayo xataa qadada la cunaya kadibna 4 saacadood ay gaadhi soo kaxaysanayaan si ay u soo gaadhaan magaalada Isfahan oo ah mid kamid ah magaalooyinka ugu caansan ee dalka Iran magaalada markay sida u soo gaadhaan waxa uu dariiqa kula kulmayaa nin isagoo wareysanaya Mareykanka iyo xaana ka wareysanaya waxaanu sheegayaa waxaanu ninkan weydiinaya in badana saxaafadda Mareykanka ay sheegtay in Iran ay khatar tahay oo aan la booqan karin laakiin ilaa imka wax dhibaato lama kulmin ay kornaya ninkan wuxuu ugu jawaabayaa waa run qofku inuu ku dalxiisa Iran aad bay amni u tahay meesha doontan ka soo jeed cid wax ka qaadaysa ma jirto dadka reer Iran waa dad aad friendly ay kornaya way ku soo dhaweynayaan meeshana sida doonta ayaad ugu noolaan kartaa cid wax ka qaadaysa ma jirto dadka dalxiisayaashana aad bay ugu fiicantay baa oranaya maadaama meel fara badan oo dabiici ay leedahay sidoo kale ninkan waxa uu ka wareysanayaa halkan waxa ka aaminsan aba oranaya dumarku inay dhammaantoodba madaxoodu ay xijaaban yihiin laakiin waxaan arkayaa aba oranaya dumar aan xijaabnaynba oo iska caadiyo dariiqyada maraya sidoo kale dadka badankoodana kamaar ku oranaya wax diin khuseeya ama dad religious maaha isagoo xataa ka oranaya masaajidka ma watakan soo maaha ninka kalena uu ku raacaya wuxuu oranaya may ma watakan masaajidka waana run oo been maaha diyaanad hore u la socon shiicadu wax diin ay haystaan ma jirto sidaad ka arkayso masaajid bayna dan kala hayn masaajiddu xataa way isaga yaalaan xabad baa tukataa xataa rabadaanta sida la sheegay magaalooyinka caadi way isaga furan yihiin cuntada caadi la isaga cunaa inkastoo ninkan la socda aad ka dareemiso inaan wax diin iyo waxba haysan oo uu ku leeyahay dadku diinta way ka daaleen hadaladiisa hadad maqashana waxa uu sheegayaaba in Iran hadii aanay Almaaniyada ahaan lahaynba ka hor kacdoonkii Iran ee 1979kii aanay dadku baraarugeenba jiilkan dambe laftarkoodna aanay waxtanaba ka lahayn diinta iyo waxaas inta kadib mar kale waxa uu geenaya masaajid la dhisay qarnigii 17aad oo ah masaajid weyn sida laga arki karayo masaajidkan waqti hore ayaa la dhisay oo farshaxanadiisa
iyo qaabka loo sameeyay baad ka garanaysaa masaajidka ninka la geynayaa waxa ku dhinac yaalaaba magaalada bartankeeda oo ah meel dadku iskugu yimaadaan ninkana wuxuu oranayaa marka laga tago masaajidada waxaan doonayaa inaan dadka waraysto waxaan ula sheegaysanayaa qaar kamid ah dadka meesha degan dhalinyar ayaaba ku soo ururaysa qaar baa weydiinaya ma Cristiano Ronaldo tahay Ronaldo waxaan ku oranayaa may isagoo kadib nin kala waraysanaya ninkaasoo weydiinayo waxyaabo ay ku fiican tahay magaaladan Isfahan iyo dalka Iran guud ahaanba isagoo mar labaad u sheegaya in nature-ka ama meelaha dabiiciga ay fiican yihiin saxaran leen ma oranaya webiyo buuro sidoo kale wuxuu la wadaagayaa in dadka reer Iran ay aad ula dhacayaan sixir barar si daily waliba xataa wuxuu sheegayaa in dadka badankiisu ay doonayaan inay iskaga tahriibaan wadanka maadaama dhaqaale ahaan aan wanaagsaneyn dadku ay wax barteen laakiin ay rabaan inay iskaga tagaan Iran isagoona sidoo kale si raacinaya in dawladaha kaliya iskhilaafsanyiin laakiin dadka Mareykanka iyo dadka reer Iran labaduba ay yihiin dad friendly oo khilaafku kaliya ka dhaxeeya dawladaha inta kadib sidoo kale ninkan waxa uu sheegayaa in dadka reer Iran aanay adeegsan karin wax international cards ama cards-ka lagu bixiyo sida online-ka oo wax walba ay u baahan yihiin si cash inay ku dhiibaan tusaale ninkan wada waxa uu sheegayaa inuu rabay inuu flight uu goosto si uu dhoofo waxaana qasab noqotay inuu meesha tago flight laga goostanayo lacagtan uu ku bixiyo cash si uu helo inta kadib qaybta xigta waxa uu sheegayaa inuu la kulmi doono uu tagi doono dhanka Kurdida ama Kurdistaanta Iran Kurdistaan sidaan wada ognahay waa dawladda weyn ee dadka Kurdida laakiin la aqoonsanayn wadamo fara badan ay ku kala jiraan Turkiga Syria Iran qayb ku jirtay qayb Iraq magaalada ugu horeysa Kurdida ka booqanayaan waa magaalada Harsin loo yaqaano halkaan wuxuu kala kulmayaa dadka Kurdida ee degan magaaladaas isagoo la fadhiisanaya shaaxna la cabaya oo wareysanaya waxaan ugu horreynba ka helaya qaabka ay markay ku salaamaan gacanta laabta u saarayaan inta kadib markuu la yara sheekaysto waxay u dhaqaaqayaan magaalada ugu weyn ee Kurdidu ka degan tahay Iran oo loo yaqaano Kermanshah waxayna soo marayaan wada boora oo dabayl ku kacsan tahay wayna iska soo soconayaan iyagoo soo socdana waxay ku shubanayaan shidaalka Iran maadaama shidaalka qani ku tahay aad buu jaban yahay taangiga dhana gaariga $1.15 ku buuxsanaysaa inta ay dhexda sii socdaana waxay ku istaagayaan meel kale qadiimiya waana farshaxan lagu sawir gidaarka oo xataa dad lagu sawiray farshaxankoodii dhagaxaan la qoray casar gaabanna waxay soo gaarayaan magaalada Kermanshah markii magaalada sida u soo galaan habeenkii waxay tagayaan ninka wada ayaa u geynaya dad ay isaga saxaab yihiin reer Kurdi ayaana loo geenayaa si ay habeenka ula casheeyaan sidoo kale waxa halka uu ka helayaa ku yar guriga jooga kaasoo Ingiriisiga si fiican uga hadlaya isagoo 6 jira waxaan weydiinayaa waxyaabaha uu doonayo inuu noqdo ka yarna oo ku yar aad u furfuran oo fariida construction site be a pilot I'm going to be a police officer all of that construction ka yar sidoo kale waxa uu kala soo tustusaya qolkiisa waxaanu ninkan keeru sheegaya qofka soo fiidiyoon daawan doona aad buu kaaga helayaa maadaama Ingiriisiga si fiican uga hadlayso marka dambana cashada ayaa loo keenayaa cuntooyin fara badan oo kala duwan ay soo karanaysaa islaantii gurigu ninkuna aad buu uga helayaa reerkuna meel bay soo wada fadhiisanayaan si ay uga casheeyaan waxaan weydiinayaa uu ka waraysanaya reerkan bal ka warama haddaad dadka Kurdida tihiin sidaad ugu nooshin Iran waxayna ka oranayaan laftarka iyaga dhibaato naga haysata oo waxaanu nahay qayb ka xidhan qayba kale Iran xataa luqadooda isku mid maaha sidaa daraadeed laftarka iyaga dhibaato naga haysata ay ku leeyihiin waxay sidoo kale sheegayaan dhaqankooda cuntadooda diinta xataa inay ku kala duwan yihiin waayo Kurdida badanka iyagu maaha Shiico ee waa Sunniyiin ninkan wuxuu sheegayaa badanka Kurdida Iran iyo kuwa Ciraaq ayaa isku mid ah waana isku xuduud markay isku kala gudbayaan waa qasab oo inay fiisa dalbadaan weeyay si Ciraaq u tagaan marka dambe reerkan way soo macsalaameeyaan markuu la soo casheeyo ka yarna wuxuu ka oranayaa sanadka dambe waxaan rajeynayaa inaad soo booqan doonto markuu guriga ka soo baxana ninkan waxa uu sheegayaa inay ahayd habeenkiisii ugu fiicnayd that was one of the best experiences of my life subax dambe markuu ninkan soo toosana isagoo ninkii kale way israacayaan waxayna u kacayaan dhanka waqooyi ee magaalada iyagoo go'aansanaya in meelaha indhahooda soo jiitana ay istaagi doonaan meesha ugu horeysa istaagayana waa xaafad yar oo loo yaqaano Balangan waxyaabaha ay xaafadan yar la gaarka tahayna waxa kamid ah in guryaha ka dhisan ay yihiin guryo isdul saaran oo qaabka architecture-keedu yahay qaab cajiib ah waxayna ku dhex taallaa meel laba buurooda dhexdooda xaafadan yarna laftarkeedu way dhex galayaan waxayna ka soo iibsanayaan mucmaamada ay ku xidhaan madaxa maadaama meeshu ay tahay meel kulul ninkii ka iibinayna lacagtii uu ku diidayaa mucmaamadii uu iska soo siinayaa iyagoo xaafadii iska dhex marmarayana dad bay caawinayaan sidoo kale odayba u yeedhaya gurigiisa ku casuumayba gudaha ayuu soo gelinayaa waxaanu tusayaa meel balkoona oo gurigiisa ka mid ah isagoo ninkan sheegaya in wadamada kale Yurub markaad joogtaan ay dadku ku ogolaan inaad guriga gasho laakiin dadkan ay ku ogol yihiin guryahooda inaad gasho islaan yar oo duqaawiyaduna aad u wanaagsan ayaa la kulmayaan iyadoona cunto karinaysa inta kalluun soo iibiyaan islaantuna waxay u sheegaysaa ama way weydiinayaan ma rajaynaysaa in mar uun dadka Kurdidu ay heli doonaan dawladiga u gooniya oo ay ku wada kulmaan waxayna odhanaysaa mar uun ma rajaynayaan inay wada kulmaan insha Allah kadib xaafadda yar way iskaga imanayaan waxayna sidoo kale soo soconayaan 5 saacadood iyagoo soo gaaraya magaalo kale oo Iran ka tirsan Kurdidu ay degan tahay oo lagu magacaabo Sanandaj magaaladan yarna wuxuu isku dayaa bal inuu tijaabiyo maciishada dalka isagoo $100 sarifanaya sida lacagteena kale
ilaa $100 u badan yahay laba lacagood oo kala duwan ayaan laga isticmaalaa riyaalka officialka ee wadanka laga isticmaalo iyo lacag kale oo aan imika aad loo isticmaalin laakiin tuumaan la yiraahdo ragga ku ganacsanaya suuqa ayaan la kulmayaa waxaanay weydiinayaan markuu isku sheegay inuu Mareykanka ka yimid sideebad Mareykanka uga timid way la yaabayeen waxaan qoranayaa diyaarad baan soo raacay lacagtiina waxba ku kala iibsanayaa street food bar ku cunaya bar dukaan buu wax kaga iibsanayaa wayna ka dhamaanaysaa ugu dambeynta sidoo kale wuxuu sheegayaa marka Ciraaq la joogo qaybta Kurdida ee Ciraaq waxay haystaan calanka Kurdistaan laakiin Iiraan calanka Kurdistaan kuma arkisid calanka Iiraan caadiga ah ay Kurdidu haystaan ugu dambeynta sidoo kale magaalooyin kale ayuu tagayay magaalada ku sii xigta magaalo ku taal xadka muuqaalkan halkaas ayuu ku soo gabagabeynaya waxaan rajaynayaa in muuqaalkan wuxuu ka faa'iiday ama at least aad wuxuu ka baratay fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe tano saar muuqaalkan like taala dhaafineed badmaadsantiin